hadda Kaalgary aan ku noolahay Kaalgary markaan amaaday waxa waaye meel caasimad weyn waayo maxaa la jira baaxad weyn lah marka shaqooyinkeed intaas shaqo fursadooyin ayay leedahay dad qaar waxay ka shaqeeyaan ko taxis wadaa ko Uber wadaa ko maxaa la jira cleaners ka shaqeeyaa ko wuxuu ka shaqeeyaa warehouse for lifts hadana aan ila hadlaa waxaan ka shaqeeyaa warehouse picking marka hooshasaan wada aan ka shaqeeyaa marka dad qaaran waxay ka shaqeeyaan meesha aasaan oo kale brokis meesha hilibka ay ka shaqeeyaan dad qaar meesha digaaga marka Soomaali bisla ka shaqeyso maxal digaaga marka xalaalka meeshaas jiraan fursadooyin badan ayaa jiraan waayo meel weyn waaye marka saasa loo kale dad qaar skip dishes ka shaqeeyaan cuntada ay qad qaadaan adiga door shaqooyin ayay leedahay Kaalgary marka alxamdulillah waxaan amaaday 2015 ayaan ka soo baxay medicine heart kadib waxaan soo guuray Kaalgary marka Kaalgary aan amaaday waa meesha meel hadii ku cusubtahay xoogo yar waa ku wareerinaysan asxaabna ay ka soo horeeyaan kadib waxaan sameeyay sheeg adiga inaan aado meelaha shaqooyinka laga apply gareeyay rasmigeyga inaan geeyo hal meel maaha marka rasmigaaga waa qaadisa meel kasto ayaad geynaysaa marka meel kasta aad geyso kuwa way ku soo wacayaan kuwa qaar ma ku soo wacayaan markii lagu soo waco interview ayaa lagu yeelanayaa intee ka soo shaqeysay maxaa soo qabatay si oo hadashay kuudii horta waa inaan luqadda aad taqaanid way ma fahantay waa luqadda taqaanid waqtigaas ka bacdi waxa way wax kasta oo ku fududeyn waa application lagu siinaa waa inaad akhrisid kala foomka aad buuxisid oo magacaaga waxaad oo dhan inaad gelisid kadib markaas ka bacdi markii ay ku hay gareeyaan kadib wixii oo information oo bank account-kaaga ama wax kasta ahaado ku saabsan direct deposit keena lagu leeyahay kaasad geynaysaa kadib shaqadii aad bilaabaysaa kadib waxa shaqada markii aad bilaaban waxa lagu siinayaa training sid u shaqeynayso for lifted waxa way iska wad le maaha waqti for lifted aad kadib training lagu siiyo oo lagu fiiriyo lagu checkin kara waa shir inaad gashid ama qof inaad ku dhufatid lama rabo marka wax kasta waxay u baahan yihiin in oo maxal deganaan inaad adeegsatid maxal ku dhufo ka dhaqaaqo wax la dhahay wadankan ma ka jiraan wax kasta waxay leeyihiin step by step waxa tartiib wax kasta training lagu siina hooshas ma qabanaysid waa kasa waan daachi waxaas xagga le way Afrika le way inta ma jiraan markii familiga aad sponsor ta arabtid koodii waxa laga rabaa marko oo sheega dawladda hadii ku soo qaado oo refugee ama Kenya ka sagal Uganda ka sagal Armel Ethiopia ka sagal markii ugu horeyso oo wadanka amaadid hadii Kenya ay ku sponsor ad ku amaanan oo dawladda ay ku soo qaaday refugee atid waxa laga rabaa in koodii sanadka ugu horeey window wala wadanka sanadkaas inaad ka faa'iideysid ayaa la rabaa sidii uu faa'iideysana waxaad u faa'iideysanaysaa waa inaad markii oo immigration ka oo Canada amaadid waa inaad u sheegtid aniga dada iga dambeey ama maxaa hooya iga dambeys ama aaba iga dambeey wiideedii aabahida u baahanahay oo ciyaalkayga u baahanahay waa inaad tiraadid aqoratid way taas waxay ku tahay ina adiga ciyaalka inaad sponsor taartay laakiin hadii oo taas ka seexatid taadu waxay ku qaadanaysaa in oo waqti dheer long inay qaadato oo kadib in oo ay ku qaadato sponsor inaad sponsortid taas way adkaanaysaa war waqti dheer ay qaadan laakiin markii adiga aad leedahay ciyaal aad leedahay ama xaaskeyga inaan keenan rabaad leedahay waad sheeganaysaa in qof ka soo tagtay oo maqtay halkaas sana aad ku jirto ayaa ku faa'iideysanaysaa marka ani markii koodii aan amaaday 2003 waxaan sheegtay in ciyaal aan leeyahay ciyaalkaygaan sheegtay marka immigration kii aan u sheegay kadib ayagana waxay ay qorqoreen meeshii joogaan iyo meeshii lagala xiriiray iyo waxaas oo dhan sidii aan u sheegay marka ciyaalkaygii sidii aan ku responsory
alxamdulilah rabilcaalamiin markii labadi kun iyo saddexda aan resbondeen 2000 waxay ii amaadeen 17 ayaa ciyaalkeyga ay igu qaadatay aan ku keenay